kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada daawadayaal meel kastoo joogtaanba youtube-ka naga daawanaysaan abwaan kaamil official shareti iyo subscribe-ta hayloobina iyo like-ta aad u mahadsantihiin waxaa barnaamijka maanta marti inoogu ah abwaan weyn fanaankayga abwaan Bashiir Garaase oo bulshadu ay in dheer garanayso Bashiir Garaase waxaan weydiin doonaa su'aalo kooban oo aad muhiim u ah in xiisi geliyo Bashiir Garaase soo dhawow abwaan waa Bashiir Garaase waa kuma xilli dheer baad fanaan tahay laakiinse waxa jiro bulsho ka dambayso yaryareed barigaad fanka aad u qadri jirtay kadibteedna ku soo biirtay social media waxaan rabaa qaybtii ka yaryareed bal inaad Bashiir Garaase in yar u sharaxdid Bashiir Garaase waa kuma soo dhawow abwaan Kamilow waa maasan tahay adiyo asxaabtaadana waan salaamaya salaan guud iyo salaan gaar ahaaneed oo adiga ah sidoo kale kaameramankeena waan salaamayna kaamerada noo fadhiya markii salaantaas laga soo tago anigu waxaa jirto qaybaha dhaantada u kala qaado kuwii hore qaangaaray iyo kuwii hore dhexaayo markaas dhexaayeen way soo daawadeen hadda wixii ka dambeeyana dhaantooyin sidii kuwa dambe ii bartaan ma bilaabi rabaa ilaa maadaama ayaan aamusnaa inta waa kaftan laga soo tago Bashiir Garaase waa nin dhallinyaraa 9 sane oo u dambeysana ku noolaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo alxamar ahaa aadiya daadiisii hore iyo yaraantiisiina ku soo qaatay gobolka Doole iyo Galgaduud iyo Mudug iyo meelahaas ku soo qaatay laakiin 9 sano u dambeysay inuu qoob joog noqdo maahane aan dalka meel uga bixin aad qoob joog waxaa la dhahaa qofka intuu meel tago yani meeshaas ama bil ama beriyo jooga laakiin ay sideeyankiisa noqon intaan ka baxay markaan qoob joogga noqday waaye kolkaad qoob joogga tahaba qoob joogga u horreeyay markaan noqonayo waaye anoo Muqdisho 5 sano ka tegin yaan baxay mar waxaan tegay Galgaduud gabar waxaa jirta markaan aad u jeclaa oo aan xiriirna markaas naga dhexeeyey way isku yara dhacna marka ka war la yiraahdo markaas jooga markaan balogteeda arkay xogaa anteeraduna way laciif ay tahay oo maaragtaa meeshu xogaa maadaama meel xogaa miimi ay amal ay tahay banaan tahay miya ah ay tahay anoo joogo markaasna xogaa rabo inaan habeenkaas meeshaas ku soo arqasho cuntada iga dig weyday gaabta markii balogtii saartay arigii lagu qalaabad cunu weyd wala lama gaarin laakiin xogaa way iga dig weyday waa waxaan carab lagu lahayn weyn marka intaan dhaqaaqay ama sii socda waxaa u jeeday waxaan la yiraahdo mataqaanaa baqalyada oo inta ka imaatay dhinacii gabadha iga xigtay xagga iyo maaragtay dhinacii xagga ahaa dhinacii gabadha u sii socota cabbaar iska maqnayd oo adigu muddo 10 daqiiqo markay sii maqan tahay baashi yaa qoftii muddo 2 qof muugiyo waa balogtiga soo qaaday qoftii baqalyadii soo socota haddana arka abwaan baqalyada waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed inaysan garanaynin laakiin waxaan jeclahay bal inaad maaragtay baqalyadu waa waxaa jiro ama gorgorka kala camal ay tahay dafada iyo waxaas oo ay tahay ma fahanti marka baqalyadu baash la yiraahdo inta badan remiga aad u garanay marka waxaa jirto markii dhaantaa sameeyay markii waliina ma qaadin dhaantada qisadaas dhaantaad ka curisay dhaantaa ka sameeyay isla markiiba sameeyay ma isla markiiba waxaa moodaa haadkani inuu warbixin geeyey warbixintii laga soo ajiibay soo laabtayna ayay ila noqotaa aniga maskaxdeeda aad iyo aad marka waxaa ira baqalyada lalaysay hawada bidiyo gorgorkii buu jira sidii biriq u diray baaqi qaadiyo fiidi bayaan u sheeg yiri ruux kuu bako boholyo aawadi barka leelkii hurdada basar bogoninba baahi weyn kuu qabaya boog ma dhagi kartaa hiri balambalkii oonka baasu qabo boqorkayga ee baray ka bogsiintiisa ha bogsoodee wadnaha ku beerkeeda saar inaba caadi maaha bug jacayloo barbin baal ka qaado yiri u soo laabtay way mogtaa waa run webigaa baaxadda leh ee Bashiir soo burqanay baal ka raaco yiri tag buu yiri hadda webigaa jacaylkaaga orod xiriirkaagii waxaaga wado webigaa baaxadda leh Bashiir soo burqanay baal ka raaco yiri waraafaan caadi maaha baashaas dabaylaha baal intaa soo qabsado badweyn soo dhex mara aan ku baaniye adiguna bil khayr boga igu labee aad weyn marka dhaantada inaba abwaan caadi maaha